Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Soomaali maxamed waa idin salaamayaa, maasha allah, tabaarakallah. Waa walaashii Naciima Istaar. Isbeddel baa dhacay, sanad baa dhacay cusub, maasha allah. Sanadkan sanadkiisa kale ilaahay nabad iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo idinka ilaahay. Waxaan rajeynayaa sideedoo kale inaad nabad qabtaan, caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba aad joogtaan. Waana idin salaamayaa soomaaliyey, aad iyo aad baa idin salaamayaa. waxaana idin leeyahay isku soo noqod wacan. waa soo laabtay walaashiin weeye Naciima Istaar. meel walbaad joogtaan soo laabta walaalayaalow. long time maasha allah. wallaahi in badan alxamdulilaah. anoo faraxsanaa soo laabtay. in badanaa isu keen dambeysay. maalinba barnaamij cusub ayaan soo geliyaa, meesha aan soo gudbiyaa. saa la socotaan barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay gabdhaheena soomaaliyeed. maasha allah, mar walba waan jeclahay, meel walba ay joogaan. wax alle waxay yihiin ayagaa isku ah. waxay yihiin tii fiican, tii xun iyo tii kale ma kala saarsaaraya. ayagaa isku ah wax walba. waxaa waay gabar walba niyadeeda iyo nafteeda iyo nolosheeda ha ku kalsoonaato. gabaree ma u baahan tahay adduunka wixii ku soo maray inaa ilowdo ood hore u dhaqaaqdo? hadday jawaabtaada haa tahay, walaashi macaan waxaan ku leeyahay dib ha u laaban. wixii shalay kugu dhacay ha ka shallaayin. waayo ilaahay baaba yiriba shalay maanta maaha, maantana shalay maaha. aayad qur-aana waaye, macnaha wax shalay tegay ma soo noqonayo. marka waxa maanta jirana berri ma aadayo ama shalay ma aadayo. anyway waa wax dhacaya mar walba inta caalamka la joogo, adduunyo ay jirto. lambar 1 waxaad samaysaa horta salaadii ilaahay 5 waqti tuko. lambar 2 maxay ahayde naftaada ku kalsoonoo. lambar 3 waxa weeye beenta iska ilaali iyo xatooyada. weligaana waxna ha dhicin, waxna ha isku dirin. waa haddaa rabto inaad horumar gaarto inta adduunyada joogtay. dadkana ha xasdin, xumaan ha u muujinin. si kastuu qofka kaaga horumarsan yahay oo ama kaa fiican yahay ama xumaato uu ku geysto, weligaa yaalaa waxaan jirin kasoo qaad. u muuji wanaag adoo ilaahay dartii ay kaa tahay, daacadna kaa tahay. soomaad garanin. teeda kale qofka walaalka muslimka ah been ha u sheegin. waxaadan lahayn ama waxaadan ahayn ha dhihin waxaasaan leeyahay, waxaasaan haystaa, iisaana ahay iyo yaa la isfahmay. adduunka hadda sidii hore maaha. waana la fahmay oo gabar walba waa lagu fahmay. dhar aada lahayn oo gabar saaxiibada leedahayna ha xiranin. adduunyada ta ugu xun waa taas. bahdilaada aa naftaada bahdilaysa ka mid tahay. waxaa laguu qaataa inaad gaajo ku noolaatid. sababtoo ah haddee dhar aada lahayn xiratid horumar ma gaaraysid. maalin walba tabalcaaro iyo dahab aada lahayn iyo macnaha waxaada lahayn haddaad maalin walba qaadato. intaasna waan kaaga digayaa gabaray. mid xigta hore u soco. sadaqadana baxso, sadaqayso. haddaad caruur leedahay iyo haddaad keligaa tahayba. haddaad singal tahay iyo haddii lagu qababa aada ubad lahaynna waxaa weeye ilaahay bari. mar walba ilaahay bari. haddii ilaahay ubad kugu siiyeyna adduunyadan aad joogto ilaahay u mahadnaq. mid ogow ilmaha adduunyada waxa laguu siiye ma ahan raaxo. 2 arna laguu siiye, raaxo iyo dhibaato. dhibaatada macnaha imtixaan. waa lagugu imtixaamayaa. sababtoo ah haddaan imtixaan jirin waxa weeye adduunkan abaayoy yacni ma ahan sidii lagugu talagalay uma noolaanaysid. hadda ilaahay amarkii iyo qadartiisaan ka hadlayaa. markaan leeyahay 2 siyaabood baa ilmaha laguu siiye. marna inaad raaxaysato oo aad faraxdo, marna in lagugu imtixaamo. ama gaalaha kaa qaadato ama ha kaa dhinto. macnaha haddii uu kaa dhintay oo kale ama gaala kaa qaadatay oo kale ama lagaa dilay oo kale ama ma aragta kaa halaabay oo kale. waa imtixaanaadka ilaahay uu adduunyadan ilmaha inoo siiye qayb ka mida weeyaan. marka ilmaha
ilaahay waxaa laga baryaa inuuna ilaahay nagu fidnaynin adduunka, ilmahana nagu fidnaynin, adduunkana dhibaatadeeda iyo silceeda ilaahayna tusin. midna ka bari mid kale inuu ilaahay baarikaaga dhiga ciyaalka. mid kalaa jiro, guri baad leedahay, waxaa laga yaabaa maanta nin faqiira inuu ku qabo, waanadan gabdhahay ku socotaa. gabdho idinkana shoorii dhaha laygtana ii sheer gareeya, ii like gareeya, ii maaragtay ii subscribe gareeya youtube-ka. waa walaashii Naciimo Star. gabdho badanaa i daawada, aad iyo aad ii daawaday, runtii ma fiicno, laakiin ilaahay rajada ilaahay kama qoysanayaani. gabdho badanoo i xastayaa jiro oo i xumiyey, way i daawadeen. faalowga macnaha subscribe-ka iyo like-tana waa igala baqaylaan. idinkale waxaa idin soo gudbiyaa gabdho, idinkale maaragtay idin waaniyaa, idinkale faa'iido idin siiyaa. faa'iidooyin badanaa soo wadaa. hadda ay dhiirigelisaan horay u soco oo aad commenti ii soo qortaan, like iyo maaragtay subscribe i siisaan insha allahu tacaalaa. gabaran baa dhiirigelin karta, saa idiin dhiirigelinaya ii dhiirigeliya. arano waay dumarka ragga le maaragtay hore u wadaan. ragga waa kuwa maalin walba idin bahdilaya, maalin walba idin furaya, maalin walba idin jirdilaya, maalin walba dhaqaalaha idin diidaya, maalin kasta ilmaha idinka qaadanayo, naag kaloo shala la keenay lagaa siinayo ilmaha. marka adoo dhinacna ugu aaneynayo soomaalinimo ama maaragtay muxuu ahaa ii sheeg islaamnimo, anigana anoo walaasha ah, gabar soomaaliyeed, haddana ina adeerta ina abtiga ahay, fadlan igu kaalmee intaas. wax kale kaama raba, lacag isii kuma lihee, ilaahay gacantaada kuu barakeeyo. marka waxaan rabaa insha allahu tacaalaa faa'iidooyin badanna waan soo wadaa, intaasna waan ku joojinayaa, waayo waxaan doonayaa mar walba video gaaban inaan soo duubo oo aad ku faraxdaan insha allahu tacaalaa. haddana horey baan u soconaynaa, youtube-kaygana waa usoo laabtay. ilaaha weyna waaxidka mooyaan cid kale waxba iima diidi karaane. ilaahay xaggiisa hadday wax walba kasoo dhammaadaan waa soo dhammaadeen, haddii ilaahay xaggiisa kasoo dhammaanina waxa weye way soconayaan biidnillahi kariim. anigana waxaan ahay qof aan ilaahaygeeda ka quursanin intaan noolahay insha allah. waxaana rajaynayaa biidnillahi kariim inaa maaragtay kommentiyada igu soo dhiibtaan waxaad jeclaan lahaydeen, caafimaadka, qaabka maaragtay xataa uurka la isaga ilaaliyo haddaad doonaysaan. badankiina idinkoo maaragtay daawooyin kale isticmaalin, dhaqtar badan tegin, si faa'iido aada u yar weeyaan, dabiici oo aan aada u weyneyn, dabiici aad iyo aad u fudud insha allah. waxna aada ku noqonayn, kiimikana ma cunaysid haddii aan lidmo. fadlan adaa kula hadlayaa, gabar soomaaliyeed adaa kula hadlayaa. shantii soomaali waa salaamayaa, meel walba ay joogaan, khaasatan qurbo joogtaan salaamayaa. intii taqaaniy intaan iyo aqooninba waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. bye bye.